haddii aan taariikhdiisa idinka shakeeyo raago ugaas wuxuu ahaa nin caana oon dadka la cilmi ahayn buu ahaa wuxuu ahaa ninka isagoo 6 jir ah gabay khatar laga maqlay buu ahaa waxaa kaloo ahaa ninka weligii afgudbeed aan laga helin buu ahaa gabay afgudbeed aan samaynin waxaa kaloo ahaa ninka hooyaalay gabayga u sameeyay ee isagu curiyay buu ahaa wuxuu ahaa nin haddii dhaqankiisa iyo tilmaamihiisa lagu noqdo nin caan ah oo wuxuu ahaa nabadoon guud ah dadka Soomaalida ah jecel inuu nabad ka dhaxdhaliyo aan ahayn dadka barbagandada iyo isku diraha iyo dhibaatada yaqaan moon ahayn nin wuxuu ahaa isagoo yar ergey weyn noqday meelo badan buu ka shaqeeyay waxaa jirta regulada la magan waa uu isku dhacay sanad idil buu ergey dhex joogay kolkii ay isku dhaceen isagoo aradbax doontay yay nag isku leedinay meesha leeyahay gabay ana gabayaha hore ku tirin ona kolkii idin qorin yu ka tiriyay gabayga wuxuu ahaa ninka imisa goor ku dhex aradbaxay geel irmaana u doontay tolki inuu nabad ka dhaliyo doonayay buu ahaa nin aan ummadda waqtigii jirtay la dhaqanayn buu ahaa nin ka horeeyo wax aan dadku u muuqday buu ahaa gabayihiisa soo socda yaa lagu garan doonaa waa gartay bal haddii taariikhdiisa si kooban inta aad noogu sharaxday aan ku koobno taariikh waxaa jirtay Soomaalidu inta badan ay sheegto oo gabayadiisa in badan laga dhax arko iyo taariikho kala duwan oo in badan laga sheekeeyo gabayadiisa waxaan ognahay inay kamid ahaayeen gabayo badan oo taariikhda Soomaalida lagu xusay gabayga ugu horeeyay ee raago waas uu tiriyo midkeeba ahaa ma la xasuustaa gabayga ugu horeeyay raago waas oo 6 jir ah oo fardala jooga oo gabigu aabihi ku soo baxay bilaantiisa kolku arkay buu aamusay aabihi laba eray buu ka qabtay wuxuu ka qabtay ugaas uma dooja walaan dawliskii xidhay mise way iska daaya dad baan dib u ceshiimeyn labada eray buu soo 6 jir ka qabtay waqtiga kadib qolo Soomaalida kamid ah yaa raago waas la tagtay waxa la ugaas farfaayo wiilkaagi boqol halaad ka soo bixi wuxuu yiri in kasta oo jeclaan lahaa wiilkii raaga ah wixii uurkiisa ku jira inaan ogaado haddana anigu xeer xun bixin maayo Soomaaliyeed anigu boqol halaad waan bixin karaa laakiin imaan waxba lahayn yaa wiilkiisa la afduuban oo boqol halaad ka soo bixi la oran intii wiil Soomaaliyeed la isugu dhiraakayuna la waayo kadib raage qoladii la tagtay nin Soomaalida kamida oo reerkooda ahayn yaa soo qaaday ninkii baa reerkooda keenay ninkii waxa la yiri boqolkii halaad qaada adigu ee qoladii la tagtay la siin lahaa wuu diiday wuxuu yiri qaadan maayo maxaa dooni ma gabadh in lagu siyaa dooni maxaa dooni baa la yiri inaan raaga walaalkii noqdaan dooni buu raage bahdoodu 5 nin bay ahaayeen horta raage inuu ga surfaabo ahaa 12 nin bay walaal ahaayeen isaga bahdoodu 5 bay ahayd nin bahgooni oo madi ah yu aabihi hadaad kol raage walaalkii noqon ka aw nuura yaa bahgooni ka soo la baatood geel la qaybsan ninkii sidii ku raacay sidii bay reerka kaga mid yihiin qoyskii raaga keenay taariikhda raaga saas ay ahayd okay Ahmed Abdi Abib waad maasantahay gabayga in badan Soomaalida dhaxdeeda laga maqlo ama gabayada raagay in badan Soomaalida dhaxdeeda laga maqlo way badan yihiin bal haddaan soo qabto gabayadaas wixii aan ka kari karaa hal haddaan soo qabano gabayga kalax iyo faldaan wuxuu ku yimid niman Soomaali ah oo waqtiga la joogay geela la dhaqan jiray iyo fardaha koora qoran iyo fandhaalo iyo kalax qoran yu u yimid maalin idil baa la wada joogay waa la wada qadeeyay sheekadoodii buu dhageystay wax kale oo sheeko oon geel ahayn buu ka waayay wuxuu doonay waqtiga la mari in hormar iyo wax kale iyo xun ay soo dhigaan uu ka waayay waqtigu ka waayay buu wuxuu yiri kalaxa iyo fandhaalka iyo intaan koorta qoranayni qorayga iyo haweenada intaan kaba u yeelayni
kambalka iyo ardaayada intaan kala laxboodaynay kolba kaynta doogale intaan kaalay odhanhaynay karaar maati iyo rayfal buu keenay faransiis koolmaanka iyo siinku waa kaalintaan gabay kari mahayo eegoon cilmiga kor ugu laabtaaye kaamboy ha jaro reetolkay kaba cadiisiye waktigaa wuxuu isagu ka fikiriya wuxuu nimankani ka fikiri baa kala fogaaday kaamboyga iyo waxa uu sheegay bal hadda dad badan oo Soomaaliyeed baa laga yaabaa inay fahansaneen haddaad yar macnaysa markaa gabaygaas xagee u jeeday muxuu dadka ku tilmaansanayay muxuu ku baraarujinayay wuxuu ku baraarujinayay inay waxbarasho galaan inay dadka hormaray horta kaamboygu ee waaga lama aqoon waxa la warin kaamboygu sheegay waa maxay kaamboy waa hadii ilaahay ka dhigo baabuur baxday oo ciidan wato yaa kaamboy leeyahay wuxuu ka doonay waxbarasho inay galaan siin waxa waaga la oran jiray taarka koolmaankuna malaha ninka taar hayuu ahaa koolmaanka iyo siinku waa kaalintan gabaygu hore igu qumanaa buu leeyahay waxbuu tusahayo inay waxbarasho galaan oo adduunka raacaan oo ina geelan iyo ciidan ku mashquulin yuu tusahayo aragti isaga dheer yaa u muuqatay dadkana intan ba aragtidiisu ahay saasay ahayd arrintu ku keenay waad mahadsantahay gabay kala jira oo raago